السلام عليكم ورحمة الله دمان صاحبada janalka Munir Mercy ku xiran soo dhawaada waa saaxiibkeen Munir maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo coronavirus ma laga bogsoon karaa runtii waxa ogtihiin in dunida sanadkan cusub almost bishii saddexaad kala bara 2020 ama 2020 in cudurka coronavirus uu dhibaato weyn ku hayo coronavirus haddii aan taariikhdiisa wax yar ku laabano wuxuu ka soo bilowday sanadkii hore gabagabadiisa dalka Shiinaha gaar ahaan magaaladiisa Wuhan magaaladaas Wuhan ayuu dhibaato weyn ku hayay dad badan oo tirada tiro badan ayuu saameeyay dad badan oo dhinteen Asia hadda wuxuu soo gaaray coronavirus wadamada Europe asagoo marka dad badan saameynayo ilaa Afrika soo gaaray laakiin hadda Europe ayuu dhibaato weyn ku hayaa dalka Shiinaha dhaqaale ahaan oo u saameeyay dunidana uu ka xiray oo wadan uu wuxuu ka dhigay xiran oo waxna aan soo galin waxna aan ka bixin dhaqaale ahaanna hoos ayuu Shiinaha dunida ugu hoos maray dhaqaalaha Shiinaha hoos ayuu dhacay sidoo kale wadamada Europe ayuu hadda bishii February ku bilowday dhamaadkeeda soo gaaray asagoo marka dhibaato weyn ku hayo dad badan way u dhinteen dad badanna caseska waa laga qabtay oo inay waxa la sheegay in cudurka coronavirus ku dhacay sidoo kale Europe wuu saameeyay dhaqaalahooda iyo isku socodkooda iyo waliba waxyaabaha entertainment u sameyn jireen sida meelaha ay isugu imaadaan tiyaatarada ama kubadda cagta inay wada ciyaaraan dhamaan saameyn ayuu ku yeeshay heer waxay marayaan hadda ay ku dhow yihiin aan qaarkood ay shaaciyeen in waxyaabahaas dhan la joojinayo sidoo kale Latin America ama qaaradda America North iyo South labada qaaradood ayagana saameyn ayuu ku hayaa gaar ahaan America ayagoo marka cases laga qabtay wadamadaas America qaaradda America dhaca Latin America asagoo marka wadanka Mareykanka ku qasbay in magaalooyinka qaar ama gobolada qaar maadaama states ay yihiin wadamadaas in uu cudurka coronavirus dartiis isku socodkii loo joojiyo waxbarashadii iyo waxyaabaha lamid ah walow weli uusan si fiican ama dad badan coronavirus uusan ku dhicin haddana weli saameyntii way ka muuqataa coronavirus maadaama dhowr qofood laga diiwaan geliyay inuu coronavirus ku dhacay America marka su'aashan haddaan usoo laabano coronavirus ma laga daawan karaa ma laga bogsoon karaa coronavirus waa laga bogsoon karaa maxaa yeelay dad badan ama dad uu ku dhacay ayaa ka bogsoodeen maxaa marka asaga coronavirus calaamadihiisa waxaa ka mid ah hergeb qandho iyo neefta kugu adkaata dad uu ku dhacay ama qofku ku dhacay wuxuu ka sheekeynaa coronaviruska in uu yahay sida hergebka oo kale hergeb caadi isagoo ku dhacay oo kale waay laakiin waxa ziyaado u ah in neefta kugu adkaanayso yarkaa uu ka daboobay nin kale oo asagana Shiineys ah oo jooga magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha wuxuu sheegay inuu ka bogsooday kaliya wuxuu sameyn jiray jimicsi xaafadu uu joogay uuna iska ilaalin jiray waxyaabaha markaas u keenaya in cudurkaas uusan ka bixin sida inuu mar walba biyo badan cabi jiray qabaysan jiray jirkiisa uu taaban jirin banaankana uusan u bixin marka dadka qofka waxay ku xiran tahay horta waxa Ilaahay dilo cudurka coronavirusna waa un sabab laakiin hadda Ilaahay tala saaratid oo mar walba isku kalsoonaatid oo qalbigaaga gelisay inaad bogsoonaysid oo Ilaahay talada saaratid oo Ilaahay mar walba aad tugtid waxay u badan tahay in cudurka coronavirus aad ka bogsooto insha Allah walow hadda weli aan la soo sheegin Soomaaliya cudurka ku dhacay laakiin coronavirus almost waa laga bogsoon karaa waxaa jirta su'aal isweydiinay coronavirus ma ku dhacaa Afrikaanka ama muslimiinta kolay kiis dad Afrikaan ku dhacay waa arkay qaaradda Afrika laakiin qof madow ma ku dhacaa qof madow ku dhacay ilaa hadda ma arkin dadka qaar waxay iska soo jareen ama ay dhaheen coronavirus kuma dhacayo qof madow ah sidoo kale coronavirus kuma dhacayo qof muslim ah horta waxa ogaataan cudurro badan oo gaalada uusan ku dhicin
in anaga uu nagu dhacay una saameeyey ama mar walba ama sanad walba muslimiin badan iyo afrikaan badan waxaa jiraan cudurro kow ka siiya ama dila sida malaria oo kale. marka malaria oo afrikaanta malaayiin sanadkii ka dila ama sariir saara oo muddo yani ilaa laga daaweeyo waqti ku qaata haddii malaria asaasta noo galayso coronavirus uu malaynayo inuu noo dahayo ilaahay baa naga haye haddana ilaahay leh hanaga hayo oo rabbi tuuga aan sameyno insha Allah waxaan rajeynayaa in ilaahay aan coronavirus nagu imtixaanin nagu ibtileynin maxaa yeelay tabar hadda aan kaga hortagno ama daawadiisa ama la tacaaladiisa aan ku sameyno ma haysano laakiin ilaahay mar walba waxaan ka rajeynaynaa ama weydiisanaynaa in cudurkaas uusan na soo aadinin oo nagu imtixaanin. waa ku mahadsantihiin daawashada muuqaalkan waa saaxiibkiin Muniir oo idin leh السلام عليكم مالي وناكس. صلوا